ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. In the name of Allah, most merciful and the most kind. All praise for Allah, we praise Him and seek His help and forgiveness. We seek liberty in Allah from the evil of ourselves and the weakness of our enemies. Whomever Allah guides, none misguide him, and whomever Allah misguides, none can guide him. I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, without associate, and I bear witness that Muhammad is His slave and messenger. Allah praise Him and send peace upon Him, His household and His companions, all those who follow them in the righteousness till the day of return. Today we want to testify you by talking about the remembrance of Allah. أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mahadda Allah ugu sugnaatay isaga ayaa mahadinaynaa raadinaynaa caawinaadiisa iyo dambi dhaafkiisa. waxaan alla ka magangalaynaa khiyaanada shaydaanka. qof walba Allah hanuuniya, cid lumin karta ma jirto. cid walba Allah lumiyayna cid hanuuni karta ma jirto. waxaan qirayaa mid xaq lagu caabudo inuusan jirin Allah waahidka mooye. waxaan kaloo qirayaa in Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee uu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa. maanta halkan si wadajir ah waxaan idinku soo jeedinaynaa khudbad qiimo badan oo ku saabsan xuska Allah. قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 152 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Allah subhanahu wa ta'ala has said in this surah Al-Baqarah ayah 152. Therefore remember me, I will remember you, be grateful to me and never be ungrateful to me. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku leeyahay suuratul Baqarah aayadda 152 ixusa waadin xusayaaye igu shukriya hana igu gaaloowina. قال الله تعالى في سورة الأحزاب الآية 41 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. And other surah Ahzab Allah has said in this surah Al-Baqarah ayah 152, 141. Are you believe remember Allah with my remembrance? Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku leeyahay suuratul Ahzab aayadda 41 dulkii Allah iyo rasuulkiisa rumeeyow xusa Ilaahay xus badan. قال الله تعالى في سورة الأحزاب الآية 45 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ahzab Allah has said in this surah ayah 35, for me and women who engage not in Allah His remembrance, for them has Allah provided forgiveness and great reward. Allah subhanahu wa ta'ala markale suuratul Ahzab aayadda 35 waxa uu ku leeyahay ragga iyo dumarka Ilaahay in badan xusa Ilaah waxa uu idin diyaariyay dambi dhaaf iyo ajir weyn. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. The Prophet Muhammad peace be upon him also said, should I not give the Prophet Muhammad peace be upon him has said this hadith. The comparison of the one who remembers Allah and the one who does not remember that of the living and the dead. Nabigayna Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ku leeyahay xadiiskan qofka xusa Ilaahay iyo qofka aan xusin Ilaah. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ku tusaalaynayaa sida qof nool iyo qof dhimatay oo kale. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينبئكم بخير من أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا عن أخيهم ويضربوا عن أخاكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. The Prophet Muhammad peace be upon him also said, should I not inform
صلى الله عليه وسلم وعو أصحابتي سكويري ما إذن شاك عمل كينا مدك أبو خيرك بدن أبونا داير سنبقر كينا أتيسا أبونا سرايوك درجوين كينا كان خيرك بدن إن أد بحسان ذهب يقلن يو